السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالكينا إن شاء الله وحين كهذا دونا دولان كدمر كهوينك يا مسلم كالو سوقادي دولان كهوينك مسلم كالو سوقادي وامدكو أبوريان نعيب شيء يكسن تاجد أي دين تودو قبان يجو كمر مرسوني دين الإسلام هو دين آسين دمر كحقودي هذا waxyaalaha ugu badan ee maanta caalamka la soo hadal qaado waxa ka mid ah hadalhaynta joogtada ah ee ku saabsan xuquuqda insaanka guud ahaan iyo xuquuqda dumarka gaar ahaan ilaalinta xuquuqda haweenku waa eray sida wardiga ay u soo celceliyaan warbaahinta caalamku dhammaanteed sida idaacada telefishinada jaraa'idka iyo bogagga xiriirka bulshada arrintan ku saabsan xuquuqda haweenka buugaag baa laga qoray shirar badan oo heerar caalamiga iyo qaar heer gobol ah ayaa loo qabtay baaqiyo caalamiga ayaa ka soo baxay munaasabad iyo maalmo u gaar ah oo lagu xasuusto ayaa loo asteeyay xoojinteeda hirgelinteeda ka hadalkeeda iyo maamuuskeeda guddiyo kala gedisan qaar caalamiga iyo qaar heer gobol iyo dal ahba ayaa loo dhisay dabagalka hirgelinteeda sanduuqyo dhaqaale ayaa loo sameeyay oo lagu xoojiyo horumarinteeda iyo hirgelinteeda fikradani kumay ekaan ilaalinta xuquuqda haweenka ee waxay markii dambe gaadhay in la yiraahdo xoreynta haweenka waxaad moodaa in dumarku meel ku xiran yihiin oo la rabo in laga soo daayo ama cidi gumaysato oo la rabo in laga xoreeyo waxa isweydiin mudan hadaba arrintan sidee ayay ku bilaabatay bilowgii dadka xuquuq raadintan waday markii la bilaabay caalamka oo dhan miyay ka tirsanaayeen mise waxay ahaayeen qaar duruufo meelo gaar ah ka jira hal u rabay hadaba sooyaalka taariikheed maalinba maalin bay ku dhiibtaa waxay arrinta raadinta xuquuqda haweenku si caalami ah u soo shaacbaxday qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad kadib markii uu xoogaystay ee uu ka hirgalay dunida kacaankii warshaduhu industrial revolution markii kacaanka warshaduhu ka hirgalay dalalka reer galbeedka ee ay warshaduhu ka dhismeen magaalooyinka dad badan ayaa ka soo guuray miyiga iyo tuulooyinka oo shaqo u soo raadsaday magaalooyinka warshaduhu ka dhismeen dadka xilliga miyiga iyo daabiyadaha ka soo hayaamay ee shaqooyinka soo doontay rag dumar iyo carruur yaryarba way lahaayeen dadkan shaqadoonka ahaa waxay u arkayeen in nolosha magaalooyinku ka fiican tahay tii ay ku haysteen tuulooyinka iyo miyiga ee xoolo dhaqatada iyo beeralaydu u badnayd kacaankii warshaduhu ka hor waxaa ka jiray meelo badan oo Yurub ka mid ah caalamka kaleba nidaam dhulgoosi ah oo uu dhulka la beerta gacanta ugu jiro dad kooban oo iska leh beero waaweyn oo ay dad badanna uga shaqeeyaan oo aanay xaaladooda nololeed adoonnimo waxba dhaamin dadka shaqaalaha ay waxay filayeen inay magaalooyinka ka heli doonaan nolol ka fiican tii ay ku haysteen miyiga kadib markii dadkani ay shaqooyinka ka heleen magaalooyinka waxaa soo baxay cabashooyin ka imanaya dhinaca dumarka shaqeeya kuwaasi oo sheegay in mushaharka raggu ka qaato shaqada ka badan yahay ka dumarku qaataan waxa kale oo ay aad uga cawdeen saacadaha badan ee ay shaqeeyaan dumarkana markii ugu horeysay xaaladda shaqo waxay codsadeen in la simo oo ay isku mid noqdaan mushaharka ragga iyo haweenka meel ka wada shaqeeya iyo in la wanaajiyo duruufta dumarka ee dhinaca shaqada oo ay u arkayeen inay ka qalafsan tahay duruuftooda haweennimo xuquuq raadinta haweenku halkaasi ayay ka soo bilaamatay markii ugu horeysay ee ay cabasho ka timaado taariikhda adduunka ee cusub kadib markii cabashooyinkani muddo soo socdeen ee ay jiitamayeen waxay ugu dambeyntii keentay inay abuurmaan dhaqdhaqaaqyo u taagan wax ka qabashada cabashooyinka haweenka sixidda arrimahani waxay ku dambeysay in la raadiyo sinaan ragga iyo dumarka u dhaxaysa oo nolosha dhinac walba gasha ama taabata sida arrimaha dhaqaalaha bulshada siyaasadda iyo arrimaha fanka iyo dhaqanka waxa xaqiiqo ah inay muddo dheer qaadatay in arrintan soo gaadho doonis buuxda ee sinaanta dhinac walba leh laakiin halkaa aynu tilmaamnay ayay ugu dambeyn soo gaadhay xuquuq raadinta oo ka bilaabatay ugu horreyn dalalka reer Yurub ama reer galbeedka guud ahaan waxay markii dambe leydheedu saaqday adduunka oo dhan oo ay ka mid yihiin caalamka islaamku tusaale ahaan dalka Masar waxaa ka soo baxay dumar wax ku soo bartay dalalka reer galbeedka sida Faransiiska oo ku doodaya in dumarka muslimka ahi ka xoroobaan waxyaalaha dib u dhaca ku ah xuquuqdooda dumarkan muslimiinta ah ee dibadaha wax ku soo bartay waxaa laga dhaadhicay in diintu qayb ka tahay dib u dhaca haysta iyo xuquuq la'aanta ay ka cabanayaan
haweenkan waxay ka soo horjeesteen si cad xijaabka oo aan dabcan Yurub ka jirin, labaynta guurka oo aanu Kiristaanku ogolayn, iyo dhaxalka dumarka oo ay u qaateen ama moodeen inay ku dulman yihiin, iyo waxyaalo diinta Islaamku qabto oo aan laga tegi karin. Dumarkani waxay damceen inay hiigsadaan haweenkii qayrkood ahaa ee ay ku soo arkeen reer galbeedka dalalkooda. Halgankii baadidoonka iyo raadinta xuquuqda haweenku wuxuu aad iyo aad u soo muuqday oo uu soo xoogaystay qarnigii 20aad dhexdiisa, kadib markii la dhisay Jamciyadda Qaramada Midoobay. Sida caalamka oo dhammi la wada socda ee aynu ogsoonnahay, Jamciyadda Qaramada Midoobay waxaa la aasaasay si rasmi ah dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday 1945. Jamciyadda Qaramada Midoobay waxay noqotay markii dambe meesha laga wado shookaanta halganka lagu doonayo xuquuqda haweenka adduunka. Haddaba baadidoonkii xuquuqda haweenka wuxuu heerkii ugu sareeyay gaadhay sannadii 1979 markii golaha loo dhanyahay ee Jamciyadda Qaramada Midoobay ay soo saartay axdiga caalamiga ah ee tirtiridda nooc kasta oo ka mid ah takoorka dumarka. Axdigani wuxuu ka kooban yahay 30 qodob oo guud ahaan sheegaya xuquuqda dumarka ee ay dhinacyada, waxaana ka mid ah sharci dejinta siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, shaqada, dhaxalka, maaweelada, arrimaha qoyska iyo xorriyadda guud. Axdigan ka hor waxaa soo baxay baaqa caalamiga ee xuquuqda dadka oo dhan, rag iyo dumar wada leeyihiin. Baaqyadan caalamiga ee xuquuqda dadka marka dhammaan la dirso si guud waxaa jira ceeb ay ka siman yihiin oo ah inaanay xusin oo aanay soo qaadanin xuquuqda Alle koreeye leeyahay. Waa duni dagaal badheedh ah lagula jiro diimaha samaawiga ah oo dhan iyo dhaqamada fiican ee ummadi leedahay. Islaamka dhexdiisa xuquuqda Alle koreeye leeyahay ayaa ka horeysa oo ka mudan xuquuqda dadka, isla markaa xiriir weyn baa ka dhaxeeya xuquuqda Alle leeyahay iyo xuquuqda dadku leeyahay. Xuquuqda Alle addoomaha ku leeyahay waxay tahay in kelidii la caabudo mar haddii aynu addoomo u nahay, oo wixii amar ku soo fula la fuliyo, wixii uu inoo diidana laga hadho oo laga joogsado. Tani waa ceeb iyo dhaliil weyn oo baaqyada caalamiga u leeyihiin oo khalad badani ka dhashay markii xuquuqda Alle laga tegay. Haddii la isbarbar dhigo aragtida Islaamka iyo axdiga tirtiridda takooridda dumarka, waxaa inoo muuqanaysa dhaliilo, galdaloolo iyo waxyaalo uu Islaamku khilaafsan yahay oo aan Islaamku ogolaan karin. Inkasta oo aanay fududayn inaynu 30 qodob mid u qiimeyno, haddana waxaynu soo bandhigaynaa ceebo guud oo uu ku khilaafsan yahay aragtida Islaamka iyo dhaqanka diinta. Arrimaha waxaa ka mid ah oo aynu soo qaadan karnaa axdiga tirtiridda takoorka haweenku wuxuu ku baaqayaa sinaan buuxda oo ragga iyo dumarku yeeshaan dhinac kasta, sida siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaxalka iyo xorriyadda guud ee qofku leeyahay, iyada oo aan la xadidin ama aan la xakamayn xorriyaddiisa oo wax ka xaaraan ah aanay jirin. Wuxuu baaqani si cad uga horjeeda aragtiyo badan oo Islaamku leeyahay oo u baahan tafaasiil dheeraad ah. Axdigani wuxuu haweenka siinayaa inay sameeyaan wixii ay doonaan ee la fiicnaada, iyadoon cidi u diidin xaqa la sheegay iyo xorriyadda aan indhaha lahayn. Axdigani wuxuu tilmaamayaa loolan cadaawad, dulmi taariikhi ah oo labada jinsi, ragga iyo dumarka, soo dhex maray intii adduunka lagu noolaa. Wuxuu qabaa axdigani aragti doonaysa in ragga iyo dumarku nolosha si siman loogu qaybiyo dhinac walba, iyadoo aan la eegin maxay ummaduhu dhaqan iyo diin leeyihiin. Haddaba xuquuqda ugu weyn ee ay dumarku ku hamiyaan ee ay halganka ugu jiraan waa xuquuqda siyaasadeed. Waxay haweenku u arkayaan haddii aanay ka qayb gelin siyaasadda oo aan hoggaanka waddamadooda aanay qaban, inaanay xaqiijin karin dhammaan himilooyinka ay leeyihiin. Dalalka reer galbeedka ee durbaanka xooggan u tumaya raadinta xuquuqda haweenka waxaa xaqiiqo ah inay dumarku siyaasadda xilliyo dhow ku soo biireen oo ay siiyeen xaqa footeynta xilliyo aan fogeyn oo kala dambeeyay. Xuquuq siyaasadeed oo aan qiimo leh ugu horreyn dumarka waddamo badan oo reer galbeedka ka tirsan footeynta ay xilliyo dhow heleen. Dalalkani waxay dumarka u siiyeen xaqa footeynta si tallaabaha oo isbeddel gaabinaya ka muuqdo. Inay footeeyaan haweenka ayaa ka horreysay inay israxaan ama la doorto si xor ah iyaga oo ragga la siman. Waddamada reer galbeedka qaarkood waxay ka bilaabeen in dumarka loo ogolaado inay dowladda hoose ka codeeyaan markii ugu horreysay. Waddamada qaarkood markii ugu horreysay waxay codeynta ka reebeen
haweenka ka soo jeeda dadka isir ahaan laga tiro badan yahay ee aan dhalasho ahaan la qolo ahayn dadka intooda badan ee ku nool dalalkooda ilaa waqti dambe ay xaqan u ogolaadeen. waxay qaadatay waqti dheer in dalalka reer galbeedku dumarka loo ogolaado inay si buuxda wax u doortaan lana doorto. waddanka Ingiriisku waxa uu ogolaaday dumarka aan la guursan in ay ka qayb geli karaan codbixinta dawladda hoose sanadii 1868. talaabadii labaad ee ku xigtay sanadii 1894 ayaa haweenka Ingiriiska ee xaaska ah loo ogolaaday inay dawladaha hoose ka codeeyaan. sanadii 1918 ayaa markii ugu horeysay dumarka Ingiriiska ee xaaska ah loo ogolaaday inay si buuxda u codeyso marka ay gaadho da'da 30 jirka, halka wiilasha loo ogolaaday xilliga uu yahay 21 jir. taariikhdu markii ay ahayd 1928 ayaa Ingiriisku dumarka loo ogolaaday inay leeyihiin xuquuq siyaasadeed oo la siman midda ragga dhinaca codeynta. arrinta Ingiriiska ee ku saabsan heerka xuquuqda siyaasadeed ee dumarka soo mareen waxay tusaale u tahay sida wadamo maanta aad ugu faana xuquuqda dumarku inay xilli dhow oo aan fogeyn bilaabeen inay dumarka la siiyo xaq ay u leeyihiin inay wax doortaan. dhinaca kale, waddanka Talyaaniga wuxuu dumarka siiyay xuquuqda footaynta sanadkii 1925. Kanada, haweenka waxay heleen in la doorto sanadii 1929. waddanka Mareykanka, isbedel dhinaca dastuurka ah oo la sameeyay sanadii 1920 ayaa lagu ogolaaday in dumarku si xor ah wax u doortaan. waxaa xusuus mudan in dalka Mareykanka da'da dumarka ku footayn karaan in hoos loo dhigay sanadii 1971 oo ragga iyo dumarba laga dhigay in ay 18 jir ku codeeyaan. waxyaalahaas oo dhami waxayna tusayaan in xaqa footaynta dumarka adduunka xilliyo dhow loo fasaxay, waana xilliyo ka wada dambeeyay markii uu hirgelay kacaankii warshadaha ee dunida ka dhaqan galay waqti aan fogeyn oo taariikhdiisa la xusuusan yahay xilliga ay ahayd. waxa kale oo ayna tusaysaa in dalalka qaar ay saameyn ku lahaayeen oo ay isku dayanayeen